wiilkayga kaal qumayda cuntada ii geey. haye hooyo ee biyaha kaniinigeeda ma ugu dartay wiilkayga waa iloow hadda ku daraa. alla kaniini meesha maxaa ka socdo orod wiilkayga qumaydan ku soo qasab. haye hooyo naaya cuntada siga cun cuntadiina ma u baahni. naaya dheregtaa kaa badatay be cuntadana soo celinay miya wiilkayga maxaa la qayladan aniga cuntada ii soo celinay miya naga cun cuntada wasaqee wiilkayga waa inaan soo fiiriyo qofkan sida arxandarada loo galayo baastaradii cuntada naga cun hay waa cunaa wax kale ay u dhufanin sidaas ayaa ka rabaa wiilkayga hadal dambe ee kugu soo celin. hooy naagtan dil ayaa wax ku leedahay ii dhaaf eeday naxariista ay dilina wiilkayga ku soo hubso cuntadan. haye hooyo waryaa maxaa rabtaa may qaylaa maqle wax dhib leh ma jiro wax dhib leh ma jiro iska bax. hooyo maxaa dhacay waxba wiilkayga ee hooshaada wado. haye hooyo abartan iyo wiilkeedu wax badan ay gurigan ku qarinooyin naaya biyahana iga cab hoo walaal biyahan wax ma iigu soo dartay naaya iga xanaajinna oo biyahan cab waa maasantaha wiilkayga intaa naga soo war doonto ee iska bax. haye maamo may walaal i caawiya yaa qaylo ma maqle wiilkayga maxay tahay qumayda carabka dheer sida u qaylinayso. eeday naxariista naaya naga aamus waa sax qaylada waa inaan ka bar doonaa wiilkayga naagtan qayladaada intay dariska iigu maqlin kaniiniga u soo qasasii. ha ka walwalin anigaa ku qasbaya haye hooyo maya sun haysiinina sababta bilaa amar gurigeenu soo gashay maxay tahay may buuqiina zaid u bataa soo fiirinay baastar ayaa taa waan qaldan tahay iiga bax guriga. hooyo yaa waa qofka hala hadlaysid wiilkan dariska gurigeenu ku soo dhunta wiilkayga. naaya aamus ha isku hadlin waa la imaadee hay ma qaylinay laakiin meesha mugdigayga bixiya aamus naaya codkaaga hoos u dhig waa la imaadee haye walaal qofkan ayaa soo fiirina meeshaada ha ka kicin waa imaqle waryaa maxaa baa fiyaanimadan maamo waa qaldama iga raali noqo hadda waa sii baxaa hay waryaa kaale intoo socotaa wax dhibaataan uma imaanin meesha inaa idin caabiya u imaaday intay qofkaan la doodayaan waa inaa u tagaa oo caaminaad weydiistaa walaali caawaf dub ayaa halkan ugu jira naanaga aamus gurigan gal. yaa maxaa ku dhacay gabadha waryaa xaggee u socotaa maxay tahay gabadhan meesha kusoo afduubateen arrin familina soo dhex gashay qalada kugu tahay ee bax guriga nooga bax ha iga tegin walaali caaw qumaya naga aamus. nooga bax guriga naaya meeshan wax naxariis ayaa ka sugaysid male qolkaana ku xirnaanay ogow. hooyo gabadhan carabka dheer intay dadka nugu diran waa inaa afkii gacmaha ka xirnaa haye wiilkayga dhaqsiga xirxir. waa ku baryaa sidaan ha ii galina ha ii xerxerina dadkan gabadhan afduub ayay ku haystaan waa inaa booliska wargeliyaa wiilkayga baraaw shaqo fiican ayaa qabatay. hay hooyo ee laakiin wiilkan deriska ayaa ka shakiyey dawgal ku soo sameey haye wiilkayga halo halo walaal soo dhawow xarunta booliiska maaho ha walaal maxaa kaa caawinaa gabadha afduub lagu haysta inaa caabisiin oo baahanahay okay walaal xaggee joogtaa si degdega lagugu imaanaa degmada warta nabadaa jooga gaar ahaan waryaa inaa ninkaa justa aa bilawdi soo maaha. habar yahay sabab noocay ugu dharbaaxday walaal xaggee joogtaa gurmad ayaa kuu soo direenaaye yaa wiilkan waa ka shakisanahay inuu dawgal nuga haya oo malaynaa waa inaa soo xaqiijiyaa halo wax qaldan ayaa samaysay. baxaraa ku jiraa maanta sida ugu baxsan lahaa falkeeda inaa gala waaya waryaa haddoo arrintan wiilkayga ogaada wix kugu dhici kara ma og tahay. gabadhaas aa xooga ku haysateen inaan iiga badbaadiyaa rabaa hay hooyo ninkan ka waran wiilkayga ninkan maya hooyo ii sheeg ninkan muxuu sameeyey may wiilkayga waxba kuma arkin. hay hooyna keen adina guryaha islaameed indhaha ka leexi khatar ayaa kaaga imaan karto hay walaal yah maxaa waay mobeelkan ala wiilkayga amoona fahmay. walaal ayadaa iga qaada marka hore hooy meesha maxaa ka socdo wiilkayga anaa baaritaan ku sameeyey wax kale ma jiro. yaa hooyadeedu qof wax badan qarinayo oo eg tahay wiilkayga intoo wax badan ogaanin waa inaa mashquuliyaa. yaa ku soo wacaayo maya walaal asxaabteeda waay wiilkayga waxaa isku mashquulinayna keen howlaheena kalaa ka badanay. hay hooy ani waa sii baxaya howlaha kale adi dhammaystir haye wiilkayga maam guriga maxaa ka socda oo iga qarinaysaa wiilkan aa dhalaa u afduubannaha aniga gabadhan. laakiin sidee oo shid mobeelka ayaa ka soo tagay xaafadda waa inay dib uga laabtaa wiilkayga caawinaad saa'ida u baahannaha meeshaan dhibaataa ku qabnaa. maama habalwelin anaa garabkaaga taagan
yah dadkani maxay sheegoyin qorshahan ayaa ku dhaqaaqaynaa wiilkaygan iyo ogaanin maamiri daara taagan yahay yaa bravo habaraya horaa kaaga shakisnaa inay wiilkan wax la wado wiilkayga sidaa u fikiraysid waxay ma jiraan iga aamus habarayay waryaa iska jir gacan damba hadda u qaado haye maxaa samayn kartaa booliiska ayaa kugu dacweynaya inaad dadkan afduub ku haysatid yah haddaa iisii noolaatale soo ma ahan wiilkaygii oo iska dhaaf anaa qaladkala wax walba u sheegay ninkan intoo maqanya waa inaa gurigan degdeg uga baxsadaa ala wiilkayga maxaa samaysay habaryay buuq badan naga dhaafee soo soco ala waa soo noqda waa inaan halkan ugu gambadaa ala wiilkayga madaxa ay war habaryay xagga naga tag aaway gabadhan kalene yah halkaana cidna kuma jirto miya habaryay aaway gabadhan kalene wiilkayga meelna kuma ogi yah aniga halkan iiga dhuumanaysaa miya may wiilkayga waa ku baryaa iska daa gabadhan habaryay iga tag baastaradii gal qolkan wiilkayga gabadhan aabbaheeda ku soo koriya abaalkiisna saamaa ka dhigtay maya ima soo korinin ee darbijiif ayuu iga dhigay maama hoose saxanka tuuris waa tuuris baxayga tag maama barya gaajaayays waxaa inaysi maama haye hadda waa soo xasuusataa oo malaynaa haa wiilkayga adigana sidaas ayaa iila dhaqmi jirtay yaa kheyladana maxay ahayd xaasidka gudaha ku jira oo maleyna inaa kasoo badbaadiyey waayo ala hooyadiisoo saan u galaa anigana ma ii dhaafaayo wiilkaygan iska kaa cafi wixii qaladoo hore kaaga galnay maya maanta waa maalinta kaa argudi lahaa yaa wiilkayga maxaa samey rabtaa fartaa igu tilmaami jirta ayaa kaa jebinaa maya wiilkayga yaa